xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan madaxdii isaga kaga horeysay kursiga. Kheyre ayaa sheegay in markii ay isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay la wareegeen xafiiska ay u yimaadeen habdhaqan siyaasadeed oo aad u xun isla markaana ka duwan hababka dhaqameedka siyaasadeed ee ka jira wadamada caalamka. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raadiyo dana gaar ah laguna lunsado dhaqaale aad u badan oo dadka shacabka laga aruuriyay. Waxaan u nimaadnay dhaqan xun in la aaminsan yahay in siyaasaddu ay tahay wax dana gaar ah lagu raadsado. Halkan waxaan ugu nimaadnay dhaqan la yiraahdo aan siyaasi noqdo si aan wax walba uga helo danaha iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu kaloo ra'iisul wasaaruhu sheegay in ceeb ay ahayd in la isla xisaabtamo iyo in la wada shaqeeyo si loo horumariyo dalka iyo dadkaba. Ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in dhammaan ay bedeleen hab dhaqameedkii xumaa isla markaana laga gudbay dhibaatooyin jira. Haatan dowladda Soomaaliya ay la jaan qaadayso siyaasadaha caalamka, isagoo intaasi xusay in ay tahay danta dalka iyo dadka in wax loogu qabto ay muqadas tahay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe madaxda dowladdii ay eedeemo xoog leh u jeedinayaan, waxaana hadalkani uu ku socday sida aan ka dareemaynaba ra'iisul wasaaruhu uu durayay labadii madaxweyne ee ka horreeyay.